muddooyinkii u dambeeyay waxaa saxaafadda Mareykanka qabsaday muran ka dhex oogmay murashaxa madaxweynenimo ee dalkan Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump iyo qoyska askari muslimiinta Mareykanka ka soo jeeda oo geeriyooday isaga oo adeegaya dalkan Mareykanka. laakiin meelaha ka baxsan shaashadaha iyo canaawinta warbaahinta waxa jira kumanaan muslimiin ah oo ku jira ciidamada badmaaxiinta iyo kuwa ka tirsan ciidamada cirka iyaga oo aamusan u adeegaya dalkooda. wariyaha VOA uga soo waranta Pentagonka Carla Babb ayaa mid ka mid ah raggaasi la kulantay. warbixintan ayayna nooga diyaarisay. gudaha xarunta waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonka waxaa ku yaala maxbad yar oo laga dhisay bartii ay 11 Sebteembar 2001 weerareen dhalinyaro muslimiin xajir ahaa. muddo imika laga joogo ku dhawaad 15 sano. Daawud Akbere waa mid ka mid ah 5 imaam oo ku jira militariga Mareykanka, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya xarunta Pentagonka. salaada casirka ayuu hogaamiyaa muslimiinta Mareykanka ee ka shaqeeya xarunta waaxda difaaca Mareykanka ee ku taala gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington si uu ugu xiro Ilaah. Akbere ma ahan gaashaanle dhexe oo caadi ah. waxa uu ku dhashay kuna barbaaray dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Ghana. Aabbahay wuxuu rabay in aan ku biiro ciidamada qalabka sida ee Ghana si aan uga mid noqdo imaamyada ciidamada. kadib waxaan ku guulaystay fiisaha bakhtiyaa nasiibka ee Mareykanka. markaad ku korto Afrika keliya ma aha Ghana, Ameerika waxa ay ku noqonaysaa dhulkii barwaaqada. waa meel aad rabto inaad aado. marka inaan militariga qayb ka ahaado aad bay iigu fududahay, waxaana i dareensiinaysaa sidii gurigayga oo kale. xirfadiisa ciidannimo ayaa suurto gelisay in xitaa uu ka soo shaqeeyo dalalka ay dagaalada ka jiraan sida Afghanistan iyo Ciraaq. mararka qaarna wuxuuba noqdaa qofka keliya ee muslimka ah ee cutubkiisa ka tirsan. markay igu arkaan anoo xiran direyska ciidamada qaar ma aaminsanayn in uu militariga ku jiro qof muslim Mareykan ah. markay arkaan way yaabaan, laakiin way ku faraxsan yihiin. marka uu guriga joogo, Akbere wuxuu caruurtiisa baraa dhaqanka Islaamka iyo akhlaaqda wanaagsan. waa kan wiilkiisa Tilahta Akbere. wuxuu noo sheegaa inaannu darajo fiican ka keeni karno iskuulka. ayadoo dhowaan uu musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka Donald Trump uu sheegay in Mareykanka uu ka mamnuucayo in dadka muslimiinta ah ay soo galaan, ayuu Akbere qoyskiisa baraa inay u naxariistaan kuwa kale. dhab ahaantii qaar ka mid a waxyaabahaasi waxaa sal u ah jahliga. waxaana mar walba aan arrintan u arkaa in ay fursad ii siinayso inaan dadka wax baro. waxaan rabaa inaan hore u socdo. waxaan rabaa inaan dadka u sheego qisadayda. ma rabo in aniga ay ii sheegto qisadayda. muddo 20 sano ah ayuu u shaqaynayaa shacabka Mareykanka, laakiin imaamkan waxba kuma eedeynayo kuwa ku aflagaadeeya diinta uu rumaysan yahay.